isku soo baxan oo lagu taageerayay joojinta qaadka ee dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay joojisay ayaa waxa uu ka dhacay barxadda weyn ee jaamacadda Daarul Xigma ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxan ayaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada mideynta guud ee Soomaaliya waxaana isu soo baxan lagu taageerayay go'aankii dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay si ku meel gaar ah ugu mamnuucday dhammaan garoomada diyaaradaha Soomaaliya in ay ka soo degaan diyaaradaha qaadka sida ee ka imaanaya gudaha dalka Kenya. Cabdullaahi Xuseen Jimcaale gudoomiyaha ururka mideynta Soomaaliyeed ayaa sheegay in qaadka dhibaato iyo burbur farabadan uu sababay isla markaana ay taageersan yihiin go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. qaadku waxyaalo badan ayuu sababay xumaan badan buu keenay dalka waan ognahay dhamaantan dhalinyarada maanta Soomaaliyeed burburkan kaalinta koowaad qaadka ka qaatay in dad badan maanta ay burburaan hantidooda ay burburto reero badan ay ku burburaan kaalinta koowaad ayuu ka qaato qaadka maanta marka xumaanta uu keenay qaadka waxyaalaha kamidka waxaa kamid ah maanta in dad badan uu qaribay hantidooda uu baabashay guriyo badan ay maanta ku burbureen dalka laftigiisuna maanta ku burburay maskaxda bini'aadamka uu wax ka bedelayo qofka maskaxdiisa oo baaba ay noqonaysa oo garaadkiisa iyo maskaxdiisa ay u shaqeynayaan si loogu talagalay dalkii amni la'aantii maanta dalka oo aad u badatay oo qaabka kaalinta koowaad uu ka yahay annaka ururka mideynta guud ee Soomaaliyeed qaybtiisa magaalada Muqdisho xafladdan soo qaban qaabino uguna talagalnay bulshada Soomaaliyeed inaan u muujino dhiirigelin ka soo horjeedna maanta qaadka taageersanaana joojintii ay joojisay dowladda Soomaaliya maanta qaadka aan garab ku siino inay halkaasi aan la fasaxin qaadka oo mar dambe halkaas lagu xiro. qaar ka mid ah ardaydii jaamacadda iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay banaanbaxan ayaa muujiyay dareenkoodii ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin joojinta qaadka. go'aankan aad diideen qaadka waa hubka qarsoon ee loo isticmaalo dalkeena Soomaaliya dhammaan dhalinyaradan baabiyay hooyo igaar cunug leh ama boqolow leh ama gabar leh u noqotay inaysan wax lahayn oo kale hooyo aan eedo ubadkeeda dhashay aan hadan ubadkeeda u tirsaneen wax kaliya waa qaadkan dalkeena la keenayo aan go'aankiina ka dhidhiyo maadaama tiin culumoodiin cilmi yaqaanadeena iyo madaxdeena dalka adinka aan hogaaminaysaan anaga adinka aan dooranay adinka wakiilkeena idin saarnay go'aankan aan ka dhijisan oo ah in qaadka la diido si uu dhijisan ha ahado oo qaadka la keenay ku adkaysta ku meel gaar wax la ma jiro hadaad tihiin madaxdeena anaga wakiilkan idin saaranay aan u diidno dalkeena qaadka waxaan rabaa inaan u sheegno dhammaan gobolada dadka ku nool ee Soomaaliyeed inay banaanbax sameeyaan kaas oo ay uga soo horjeedaan qaadka maanta waa bilownay Muqdisho laga bilaabo caasimaddiya gobol walba waxaan rabnaa biri inaan wajeedno oo lagu hayo waan diidnay qaadka dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay soo saartay amar ku aadan in aan wax diyaarad ah oo qaad sida aan ka soo degi karin guud ahaan garoomada diyaaradaha Soomaaliya ka soo dega qaadka ayaa dhibaato fara badan u horseeday shacabka Soomaaliyeed. Haashim Maxamed, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.